waxaa sharafi ah nabad maantay 23 sano ka bacdi in aad nabad ku baaqdeen uguna baaqdeen walaalihiin kale oo ku baaqay in ay dagaal ama curyaan wax dagaal u eg waxaan ugu baaqaynaa walaalihiin kalena inay ka tanasulaan maxaa yeelay nabadda keliya kuma ekaanayso gogoshan loo fidiyey ficilay u baahanta walaalayaal nabadda muqdisho dhib badan baa laga soo maray maal badanaa ku baxay xorriyadda muqdisho in gumaystaha laga xoreeyo 10 sano ayaa mudane prime minister cabdullaahi ciise alla u naxariistee ayaa la dhisay midnight villa Soomaaliya midnight waalidkii dhalay generaal maxamed faarax ciidiid marxuum wuxuu ahaa kabtankii watay unugta calanka saaraysay magaalo madaxda muqdisho villa Soomaaliya maanta in loo dhaarto villa Soomaaliya mina weyn ma yeelanayso marka waxaan idinka codsanayaa nabadaas waxay u baahan tahay ficil shaqay u baahan tahay ka badan maanta gogosha aan fidinay taasna waxay u baahan tahay qof walba qofka uu qaban karo inuu uu qabto kana hor istaago in dagaal lagu celiyo muqdisho aniga waxaan idinkugu nimid ficilkaas inaan qayb weyn ka qaato oo aan qaybteeda ka qaato aan la hadlo walaalahay iyo inta saraakiil ama ciidan ama shacab la isku dayayo in loo abaabulo muqdisho in mar kale la horiyo dagaal arrintaas waa ka soo horjeedaa geed dheer iyo geed yar waa u fuulayaa in nabadda laga xoriyo lagana wada shaqeeyo waxaan si gooni ah ugu mahad celinayaa mas-uuliyiintii soo abaabushay xafladdan ballaaran waxaana ka codsanayaa gobernatoraha sidoo gogashan u fidiyey in aan abaabul degmo walba iyo tuulo walba ilaa magaalada xamar laga wada tanasulo oo raalli lagu noqdo taageeridda ra-iisul wasaare Roble inuu guto waajibkiisa nabadeed iyo madaxweynaha Cabdullaahi walaalkay Farmaajo in ay waajibkooda qaran gutaan laguna soo dhaweeyo maxaa yeelay baahida loo qabo in ay in la dhiso dowlad qaran waxa weeye waa qayb aad ugu muhiim ah in lala shaqeeyo dowladda hadda jirto waxaana ogtahay inta dib aan u soo marnay inta shir nabadeed aan galnay marka waxaan idinka codsanayaa idinkoo wax walba og idinkoo dadaal badan maanta maray haddana qof walba maanta wixii ka bilowda aan u istaagno inaan walaalaheenna ama qof kasta oo isku daya magaalo madaxda muqdisho in uu gadaal u celiyo nabadeeda in aan la qabsanno maadaama aan hal waddan muslim nahay maadaama aan joogno bishii ramadaan oo qur-aanka uu soo degay maadaama aan nahay dad muslim ah in aan isku sheegno xaqdaradana aan iska qabanno in aan macruufka aan badinno aan ka hortagno wax alaale wixii keeni kara munkar inaan u laabano walaalayaal bilicdaan quruxda badan iyo sharaftaan waxay ii tahay maanta inaan idinkala qaybto waxay ii dhiirigelinaysaa inaan idinkalaga shaqeeyo nabadda marka waxaan idinka cudur daaranayaa aniga oo soo gaabinaya khudbadeeda waxaan gogolaha ka dambeeya gogol kastoo nabadeed waxaa sharaf weynaa inaan idinkala qayb qaato kana mid noqdo hogaamiyaha nabadda ee muqdisho wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu